بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي دقالي وايد سلامي مقعي ورحمة سلاد عبدي هلك آدنا داونيسان وملاك جنال waxaad daawanaysaan barnaamij Banaad Xawaa. barnaamij Banaad Xawaa waa barnaamij aan ugu talagalnay haweenka sida aad ka arkaysaan magaciisa. waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno dumarka isla markaana aan ugu sameyn doono doodo. sidoo kale waxaan ku sameyn doonaa tartamo loo qaban doono haweenka oo aan ku guddoonsiin doono hadaayad qayb ah. sidoo kale waxaan ku marti qaadi doonaa haweenka aan isleenahay waxay saameyn ku leeyihiin bulshada isla markaana aan wareysi idinkaga soo qaadi doono. maantana waxaa marti inoogu ah Ustaad Xafsa Cabdilaahi Axmed Sahal oo iyadu ah macallimad gabdhaha barta cunto karinta isla markaana ah milkiilaha hotel Boqorata oo aynu maanta isla joogno. Ustaad Xafsa kaliya howlaheeda kuma koobna intaas. waa gabadh ka qayb qaadata faafinta dacwada islaamka. sidoo kale waxay qayb ka ahayd gabdhihii soo agaasimay barnaamijkii loogu magac daray ololaha dib u hagaajinta kitaabka Qur'aanka Kariimka ah. marka hore Ustaad Xafsa ku soo dhawaaw channelkayga. alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah wa ba'd. mahad ilaahay kadib aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin channelka Malaak oo aad iyo aad cinaayo u siiyo barnaamijta dumarka iyo horumarinta haweenka. aad iyo aad ayaan kugu mahad celinaynaa. run ahaantii waa arrin aad iyo aad baahi loogu qabo dumarka inay iyagu ku fakaraan inay iyaguna is hormariyaan. waa horumar aad iyo aad u wanaagsan. soo dhawaada aad iyo aad idinka u mahadsan. Ustaad Xafsa waa mahadsan tahay. daawadayaasheena waxaa u sheegtaa waa tuma Xafsa adiga oo ku bilaabaya magacaaga oo saxan waxbarashadaada 2 daqiiqo inuu soo koobay. magacayga waa Xafsa Cabdulaahi Axmed Sahal gabar Soomaaliyeed hooyo ah. waxbarashada majaalka shariicada islaamka ayay tahay waxbarashadayda. bachelor shariica islaamiya fiqh usul fiqh degan magaalada Muqdisho. milkiilaha sidii Raxmo sheegtay ama gabdhaha leh kamid ah Boqorada restaurant ama hotelka Boqorada. nashaataad kala duwan ku leh bulshada dhexdeeda majaalka dacwada iyo diin faafinta tarbiyeynta gabdhaha ama kubcinta bulshada qaybta dumarka. aad iyo aad u jecel waxyaabaha qaarna ka qabatay wax badan ay u dhiman yihiin hadduu Ilaahay idmo. insha Allah Ustaad Xafsa waa mahadsan tahay. waxay nooga sheegtaa shaqooyinka uu qabto hotelkiina xilliga la furay iyo sababta keentay in la furo baahida kaliftay inaad furtaan hotel noocan oo kale. waa 3 su'aalood oo wada culus laakiin waa kala tartiibinaynaa. baahida keentay inaan ku fakarno mashruuc noocaana ama hotelkan oo kale inaan furno runtii waxay baahi taagan oo anaga khaas ahaan u dareemayna dumar haddaan nahay maadaama aan u baahannahay goobo aan xafladaha ku qabsano munaasabaadka kala duwan hadday tahay aroos hadday tahay xaflado noocyo kala ah. baahida aan u qabno meel aan fariisano inaan helno oo dareenno khusuusiyadeena dumarnimo. run ahaantii oo magaalada Muqdisho intii aan dhex maraynay muddadaas ka hor aanan ka helin waxay nagu kaliftay inaan ku fakarno inaan abuurno shaqo kow inaga dadka ka faa'iideysanaya aan noqono oo ah in la sameeyo meelo lagu qabsado xafalaadka goobo qurux badan dumarku ay ka shaqeeyaan dumar ay u adeegi karaan khusuusiyada dumarka aan ku dareenno. baahida keenta horta taasay ahayd. hotelkan waxaa la furay 2017 waa 3 sano jir hadeertaan. waqtigaas ayaa la furay. shaqooyinka aan qabanno waa khadamaadka ama serviceka oo u baahan yahay maqaayad restaurant dheh hadaa rabto balaas lagu daray xafladaha kala duwan hadday tahay shirar hadday tahay seminaaro hadday tahay aroos hadday tahay xaflad todobo hadday tahay yacni noocyada xafladahoo dhan ayaan qabanaa. waxaan leenahay hoolal hool weyn iyo hool 2 hoolo yaryar ayaan leenahay. shaqooyinka marka aan qabanno waxay tahay khadamaadka oo restaurantiga oo quraac iyo qado iyo casho iyo casriye waxay u baahan tahay ka heli kartid meel nidaamsan oo qabow oo qurux badan oo jawi degan ahna in uu qofkii helo ayadana waa khadamaadka aan tawfiirin ay ka mid tahay iyo hoolal munaasib u ah in lagu qabto munaasabaadka waaweyn. shaqooyinka aan qabanno
waa saddexdaas. waxaa kaloo soo raaca saaloon ayaan leenahay oo gabdhaha isku hagaajiyaan markay u baahdaan oo khadamaadka gabdhahoo dhan loogu qabto, isagana waan leenahay. waxaan leenahay dukaan lagu iibiyo macmacaanka oo bannaanka iridda ku yaala oo lagu iibiyo waxyaabaha bakeryga oo kala duwan. taqriiban khadamaadka aan qabanno waa inahaas. aad ayaa u mahadsan tahay ustaada xafsa. waxaad wax iiga sheegtaa ma jirtaa cid idinku caawisay, hay-ad ama qolo kaleba cid idinka caawisa shaqooyinka aad qabataan? shaqooyinka aan qabanno cid naga caawisaa ma jirto, laakiin markaan shaqada ku fakarnay oon bilaabaynay waxaa jirta jiho aan dayn weydiisanay, dayntiina na siiyeen si dayntaas aan mashruuceena ugu bilaabano. waana ka helnay dayntii aan weydiisanay, kadibna muddo aad iyo aad u gaaban ayaan dayntii ku gudnay. dayntii markaan gudnay kadibna annagaabaan u baahanba cidna caawiyo, because waa innagaa shaqaysana wax soo saarana, wixii aan soo saaranana nagu filan. alxamdulilah rabbilcaalamiin. alxamdulilah. ustaada waxaa ku weydiinayaa magaca boqoradda maxaa ku doorateen? waa su-aal aad iyo aad u qurux badan. magaca boqoradda maahan magacaan iska dooranay. shaqadan markii aan ku fakarnay shaqo noocaana inay dumarka u baahan yihiin, cid u qabanaysana aysan jirin, cid hore uga fakartayna aysan jirin. dumar haddaan nahayna Soomaali weliba aan ka sii nahay, aan baranay in wax badan ay ragga noo tawfiiriyaan ama shaqooyin badan oo ragga ayagu ay asaaskeeda leeyihiin inaan ka hoos shaqayno. maadaama aan baranay waxaan sugaynay khadamaad badan oo gabdhaha ay u baahan yihiin inay helaan. maadaama aysan suurto gelin ayaan waxaan dareennay in dumarku ayagoo isku tashtaan, dumarku inay u baahan yihiin inay ayagu isdhiiro geliyaan, dumarku inay ayagu u baahan yihiin wixii baahidooda inay daboolaan, wax qurux badanna ay samaystaan. okay, markaan mashruuci ku fakarnay kadib mashruucu wuxuu u baahan yahay magac. magaca boqoradda keligiis iskama imaanin, magacyo fara badan oo aan isku keennay ayaan ka dhex dooranay oo boqoraddu ay ka mid ahayd. magaca boqoradda waxaan ku dooranay laba shay oo muhiim ah oo annaga daruuri noo ahaa businesskeenna ama shicaarkeenna ama magaceenna inuu ka dhex muuqdo ayaan boqoradda ka dhex helnay, oo ah gabadhu inay tahay kaa'in aad iyo aad u qiimo badan, heer boqornimo inay gaarsiisan tahay, iyo magaca boqoradda inuu ka dhex muuqdo dumarnimo. waa laba marka, waa dumarnimo iyo macno aad iyo aad u sarreeya, qiimo inuu ka muuqdo. labadaas ayaan ku dooranay annagoo isleh magaca markuu dhagaha in badan ku dhaco, isticmaalkuna ku bato, ixtiraam badan ayay gabdhuhu ku heli doonaan insha allah. waxaad ii sheegtaa dumuuxaadka ama riyada aad leedihiin mustaqbalka midka dhow iyo kan fog, meesha aad rabtaan inaad gaartaan? wallaahi dumuuxaadka iyo rajada aan leenahay oo aan rabno inaan gaarno mustaqbalka fog, waxaan rabnaa inaan gaarno haween Soomaaliyeed oo si farxad la u nool. waa waxa ugu dambeeya aan rabnaa inaan gaarno, oo mashaariicdan faraha badan oo aan ku fakarayno oo aan ku lagdamayno, natiijada ugu dambeyso aan rabno inaan gaarno hooyo Soomaaliyeed oo si farxad la u nool, culayska iyo canaabta noloshana qayb badan xalkeeda laga gaaray ama xalkeeda la helay, oo si aad iyo aad u degan oo habiya u nool inaan helno. waa waxa ugu dambeeya aan rabno inaan gaarno. waxyaabaha aan ku fakarayno oo aan isleenahay tillaabooyinka aan rabno inaan qaadno, inaan taxqiijino gabadha Soomaaliyeed in sidii loo kobcin lahaa aqoonteeda inay tahay shayga keliya oo aan ku gaari karno waxa ugu dambeeya aan rajaynayno. gabadha marka aqoonteeda la kobcinayana waxay u baahan tahay noocyada kala duwan ee aqoonta iyo qaab munaasib u ah dumarnimadeeda inay aqoontaas ay ku hesho. taas waa midda aan ka shaqaynayno mustaqbalka dhow. haddana aan faraha kula jirno, laakiin waa jaranjaro aad iyo aad u dheer. aan isleenahay maalinba waxaad kori doontaan level mucayana kori doontaan ilaa aan ka gaarno insha allahu waxa aan rajaynayno. maasha allah ustaad xafsa, aad ayaa u mahadsan tahay. su-aasha xigta aan ku weydiinayo waxay tahay, ma is leedahay hoteelkiina wuxuu soo kordhiyey adeegyo cusub aanan ka jirin magaalada, isla markaasna faa'iido u leh bulshada? sidoo kale ma jiraa waxyaabo aad kaga duwan tihiin dhammaan hoteelada kale ee ku yaala magaalada Muqdisho? aad iyo aad waa su-aal aad u fiican. way jirtaa wax aan soo kordhinay oo magaalada laga helaynin, waana wixii nagu kalifa marka horeba inaan ku fakarno inaan shaqo noocaana aan abuurno. waxaan soo kordhinay
khadamaadka gabdhaha loo qabto inay gabdho u qabtaan magaalada muqdisho kama jirin hotel inta la tago cunada ay gabar kuu keenayso yacni adigoo gabar ah inay gabar kale cunadii iyo servicekii cuntada iyo dalabkaaga inay gabar intay dalabkii kaa qaado kuu soo diyaariso kama jirto magaalada muqdisho ama kama jirin annaga waqtigii aan ku fakaraynay mashruuca noocaana xafalaadka marka la qabo inta badan waxaa dhacaysay in dumarka marka ay ciyaarahoodii arooska iyo wixii ay samaysanayaan in ay ku khasbanaayeen cameraman hadda waxaan idhahnaa camera woman aan idhahnaa innaga waa mustalax jadiida ama soomaalida jadiid ku ah ku cusub in la helo gabdhahaas iska xafladaysanaya xafladoodii farxadooda qof u duubo haddana ajnabi aan ka ahayn oo macnaha dumar ah servicekaasna innagaa magaalada muqdisho kusoo kordhinay waxaan laga yaabaa haddii lasii baaro soomaaliya o dhan in annaga qolada ugu horreysa inaan noqonaa dhici karto laakiin ma hayno baarid daqiiqa ma hayno waxaan soo kordhinay meeshii arooska uu ka dhacayay goobtii in isla goobtii gabadhii ay ka hesho adeegyo fara badan oo kulli khadamaad ama service dumar ay u qabanayaan oo ah saaloonkii inuu meeshii uu ku dhex yaallo oo gabadhii saaloonkii iska hagaajinayso hadday rabto galabta inay meeshaan intay kafee ka cabto ama xoogaa yar casiriyeysta caawa gurigeeda ay u laabato iyadoo qurux badan isla markii waxay ku leexanaysaa saaloonkii oo meeshii ugu dhex yaalla caawa gurigeeda waxay tegi kartaa iyadoo qurux badan gabadha la aroosaayo iyo gabdhaha la socdo iyo faamilka oo dhan waxaan u fududaynay inay halkan iska hagaajiyaan waxaan u fududaynay in khadamaadka gabdhaha ay u baahan yihiin oo khaaska u ah aysan dareemin wax culays ah ama rag hawshii dumarka faraha kula jiro totally waan ka ilaalinay rag inay faraha la soo galaan hawsha dumarka innaga laftigeena waxaan is leenahay yacni boqolkiiba boqol maydan ku guulaysan laakiin boqolkiiba 70 ilaa 80 waa ku guulaysanay marka waxaan is leenahay aada uga duwantihiin magaalada maasha allah waa si wanaagsan maadaama sidii aad noo sheegtay hotelka ay ka shaqaynayaan gabdho ma jiraa wax caqabad ah oo idinkaga imaaday bulshada maya bulshada caqabad noogama imaanin inta badan caqabada aad u fudud oo mararka qaarna caqabad aanan dhihi karin maadaama dadka dhan aysan saameyn ku lahayn gabadha Soomaaliyeed waa gabar shaqaysa aslan intaan anaga imaanin ka hor waa gabar shaqaysa waxay ka shaqaysaa shaqooyinka kala duwan ee faraha badan ee dadku u baahan yihiin gabadha Soomaaliyeed suuqay taagan tahay ganacsiga dharkay ku jirtaa ganacsiga xoolahay ku jirtaa ganacsiga raashinkay ku jirtaa guryahay ka adeegtaa oo adeegto bal wadooyinkay xaaqdaa aniga adduunka wali kuma arag gabar ka shaqaynaysa isbisiini adduunka kuma arag inkastoo adduunka meelo badan aana ka tegin wadooyinkay xaaqdaa waxyaabaha yaroo laga ganacsaday ku jirtaa ilaa waxyaabaha ugu waaweyn ku jirtaa siyaasadday ku jirtaa hooyanimada way u dheertahay marka gabadha Soomaaliyeed waa gabar aslan marka hore meel walba ka shaqaysa oo faraha la gashay marka caqabad ma nama soo wajihin aan dareemayno gabadha inay ku culus tahay inay qabato shaqooyinka ay meeshaan u baahan tahay kaliya annaga waxaan dareennaa maadaama aan ku fakarayno gabadha Soomaaliyeed si farxad leh oo qurux badan oo nidaamsan oo dumarnimadeeda munaasib ah shaqo ah inay hesho maadaama annaga aan ku fakarayno ama horumarinta gabadha aan ku fakarayno mararka qaar waxaan dareennaa culays gabadha haysta oo ay ka mid tahay shaqooyinka habeenkii oo kaleeto meeshaan waxaa la xiraa 3 saac ilaa 4 saac oo habeenimo dumar maadaama ay yihiin dadka ugu badan ee meeshaan ka shaqeeyo mararka qaar waxaan dareennaa gabadha inaysan munaasib ahayn saacadaas inay socoto aan dareennaa annaga laftigeena oo meesha iskale oo wada gabdho ah waxaan dareennaa mararka qaar daahidda inay nagu culus tahay inaan meeshaan ku daahno sidaas daraaddeed waxyaabaha aan meeshaan serviceka u baahnaay oo annaga aan kansalnay oo meesha ay u baahan tahay oo dadka qaar xitaa na weydiiyaan waxaa ka mid ah ma lihin qolal jiif oo hotel ah ma lihin sababtana waxay tahay ma idaareyn karno annaga dumar keliyaan nahay wax raga naguma dhex jiraan marka caqabadahaas oo yaryar marka loo fiiriyo dee caqabadaha laga yaabo dumarka adduunka nagula nool soo waajihi kara markay shaqo noocaan oo kale ku jiraan yani aadan uga shida yarnahay alxamdulilah waa tahay su-aasha xigtaa ku weydiinaya waxay tahay sidee ayay u arkaan dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho shaqada u qabataan qaabkee ayaa laydinkaga soo dhaweeyey amase qiimeyntoodu maxay ahayd horta mar walba aragtida bini'aadanka hal ma noqoto dadku way kala aragti duwan yihiin dad badan oo sidaan u fakarayno u fakaraayo ama mabaadi' badan aan ka midaysannahay
waxay u arkaan inaan qabano shaqo fiican, inaan soo kordhino service qurux badan, inaan culays badan oo bulshada saarnay aan la qaybsanay wax qurxan iyo khidmo qurxanna aan u soo qadimnay oo aan siinay. baynamaa dad kale ay noo arkaan inaan nahay dad cinaad badan mucaqadiina oo kala saarsaaraya waxyaabo aan loo baahnayn in la kala saarsaaro inaan nahay ay noo arkaan. sida markaan nidhaahno oo kaleeto hoolka ciyaaraha oo arooska dumarka markay ciyaarayaan wax raga uma galayaan, gabar baa duubayso, meeshaan waxaan dumar ahayn ma galaan xiliyadan. dadka qaar waxay rabaan servicetaas ka duwan oo ah dhalinyaradii markii aroos uu jiro wiilashii iyo gabdhihii inay wada ciyaaraan oo hoolkii uu noqdo hool mushtaraga ama mukhtalad ah. taasoo kale annaga yani 100% aan diidnaa, yani wax yar xitaa nisbe yar xitaa ma ogolin. meesha aan ka diidna hal qof hal nin oo cameraman oo 200 oo dumar duubay yani ma ogolaan karno 2 iyo 3 iyo 5 gabdhihii la ciyaaray. marka dadka u arko arintaas inay tahay arin iska caadi oo aan dhibaato iyo culays lahayn, annaga culays baan ku nahay. marka naqdiga xaggooda nooga yimaado, laakiin naqdigeena waxaan idhahnaa dhib ma lahan, yani joyska adaa iska leh, laakiin annaga ma hayno shaqada noocaasa. marka magaalada waa ka heli kartaa, laakiin annaga ma samayno. marka meelahaas oo kale ayay dadka qaar naga naqdiyaan, laakiin majoritka inta jecel ama isku aragtida aan ka nahay baahidan inay dumarka khaas u tahay si khaasna loogu xaliyo, intaas bilcagsi mahadnaq fara badan iyo waxaan ka helnaa dhiirigelin aad iyo aad u weyn. waa si wanaagsan. ma jiraan hoteelo xiriir aad leedihiin ama wada shaqayn idinka dhexeyso? maya, walilasaf shadiid waana jecelnahay inaan gaarno. waxaan dareenaa Soomaali haddaan nahay inaanan weli aanan gaarin intii isku xirfad ahba inay isbiirsato, iskaashato, isgarabsato si ay berri u noqdaan jumhuur xoog leh oo kelimad leh oo iyaga dhexdooda xitaa wax kala faa'iidaysto. weli maanan gaarina isle, laakiin innaga dadka ku fikirayana waa nahay. marar waxaa dhacda dad hoteelo kale leh oo laakiin macaariifta ka mid ah, qof aan macaariifta ahayn kuguma soo dhiiran karo, oo macaariifta ka mid inay su'aalo naga weydiiyaan business noocaan oo kale iyagoo jecel inay furtaan inaan aan siino tusaalayaal ama talooyin ku aadan, maadaama nooca ma khibrad aan dheernahay. run ahaantii waa ku faraxnaa, waxaana siinaa talooyinka aan isleenahay khulaasadii aa gaarteen waaye, wixii ugu dambeeyo aa gaarteen, innagoo isleh qofkaasna suuqa ha idinkula soo biiro oo berri nambarka ha idiin badiyo. tan labaadna qof wax soo saarto oo meesha aa ku kufteen ka badbaado ha noqdo oo qof walaalo aa caawiseen. marka aaday u yartahay inay dhacdo. ustaad xafsa, aad ayaad u mahadsan tahay. su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiinayo barnaamijkana aan jeclahay inaan kusoo xiro waxay tahay fariinta aad u diraysid ganacsatada Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka qurbaha ka imaanayo oo iyaga doonaya inay wadankii maalgashadaan, si gaar ah dumarka, maadaama barnaamijkeena uu yahay barnaamij aan ugu talagalnay haweenka isla markaasna aan ku dhiirigelinayno. fariintaada ugu dambeyso ama dhiirigelintaada aad u diraysid maxay tahay? ما شاء الله. وسؤال آدي آد أضنينا اللي ويديو سدح سؤال وسكو هوس جرتوايه ganacsatada guud ahaan waxaan u diraa fariin culus. qofka ganacsado waa qof bin aadana oo mabda leh. hadduu noqdo qof aan mabda lahayn kaas hadalkayga xitaa luqadayda ma fahmi karo. laakiin annagu waxaan nahay dad muslim ah, Soomaaliyaan ka siinahay. qofka ganacsado mabda uu xambaarsan yahay markuu qof Soomaali yahay waa islaamnimo. qofka muslimka ah adduunyadan uu joogana macnay u leedahay, nolol kale oo ka dambaysa oo ka sii macno weyn way jirtaa. qofka ganacsanaya waxa uu ka ganacsanaya waa inuu yaqaano, waa inuu yahay waxa uu ka ganacsanayo ficlan wax maqan ee dadka uu ugu adeegayo, dadkuna ay baahi u qabaan. inta badan qodobkaas kuma dhacno oo ganacsato haddii la yahay waxa loo ganacsanayo loo shaqaysanayo waa qofka wuxuu u baahan yahay u kan si wax uga heshid adigana isagana uu u helo wixii uu u baahnaa. laakiin waxay u baahan tahay in loo fiiriyo jawaanib fara badan, inaa u fiirisid dalkaaga inuusan ku ahayn culays shayga ka ganacsanaysid, oo shayga shay la mid ah haddii dalkaaga ka heli kartid waa inaad dalkaaga ka qaadatid ee aadan dhihin waxaan dibadda laga keenaay inta ordaysa aa ka daba orodid. wax sax maahan. haddaan ganacsanahayna ma nagu habboona. wixii dalka yaallo oo badiil u ah ama soo dhaweyn kara ama booskiisa buuxin karo inaan ku fakarno waa waajib. waa waajib. shayga waajibkaana in la sameeyo oo la fala ayaa la iska rabaa. shayga laga ganacsanayo waa in loo fiiriyo in uusan
diinta iyo mabda'a uusan duraynin ilaa xaddi ma Soomaali haddaan nahay dhankaas waa ka caafimaad qabnaa inkastoo meelaha qaar weli ay wax naga dhiman yihiin muhiimaddu waxay tahay shayga aad ka ganacsanaysid in uusan ahayn shay mabda'aaga ka soo horjeedo ama diin ahaan dhaawacayo inuusan ahayn ganacsatada waa inay ku fakaraan in shaygan ay ka ganacsanayaan gacanta ugu dambayso ay gaarayso uu ku farxo oo bulshadina aan lagu cuslaynin dhanka qiimeynta adduunka waxaa ka jira la yiraahdo yacni tasciir ama qiimeyn ama baraysayn dheh haddaa rabto shayga barayska munaasibka ama laayiqo ah in shacabka wax lagu siiyo ayadoo aan laga faa'iidaysanaynin fursadda ah shaygan uu maqan yahay majaalkan anaa ku horumaray kaliya ayadoon laga fiirinayn marka ganacsada si guud waxaa laga rabaa inay u naxariistaan dadka ay wax ka gadayaan inay u naxariistaan dalka ay ka soo jeedaan oo run ahaantii dayn nagu leh dalka dayn buu nagu leeyahay in marka ganacsada si guud ay noqdaan dad raxmad leh xigmadna leh gaar ahaan dadka qurbaawiyiinta ee qurbaha ka imaanayo qurbaawiga qofka ah macno weyn oo qiimo badan ayuu xambaarsan yahay oo ah dal islaameed waad soo aragtay waadna ku soo noolaatay wax weynna kama tihid macnaha ayuu xambaarsan yahay dalkaaga ayaa wax ka tahay ku ixtiraaman tahay laakiin dalkii wax badan ayaa ka maqan ee dalkii kuna noolow waxna ku soo kordhi si qurux badanna ugu noolow marka uu qofka qurbaawiga ah ku fakaraya dalka inuu ganacsi ku samaysto wuxuu u maleeyaa waxa uu bannaan ku soo arkayoo dhan oo quruxda badan inuu isaga samayn karo laakiin markuu dhex galo ayuu wuxuu arkaa inuu qayb yar oo aad iyo aad u yar uu isku dayi karo inuu xalliyo marka qurbaawiyiinta waxaan leeyahay niyad jabinina wadamada tagteen oo quruxda badan oo nidaamka uu ka jiro waxa aad ku soo aragteen iyo wax ka fiican inaad dalkiina la jeceshihiin aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin laakiin markaad shay bilowdo oo aad aragto waxa ku hareeraysan oo dhan inay tahay dhibaato iyo foolxumo ha niyad jabin ayaan leeyahay qofka qurbaawiga ah waa la kulannay culaysyo fara badan waana aragnay haddana waan ka gudubnay qofka qurbaawiga waxaan leeyahay waa ka gudbaysaa ilaahay idankiisa laakiin ha niyad jabin dalkana waxaa ku soo kordhisaa wax macno leh oo faa'iido leh oo suurtagal ah waxa aan suurtagalka ahayn qofka qurbaawiga isaga iyo niyad jab weyn kusii abuuraysa dumarka qurbaawiyiinta ama kuwa dalka jooga ee jecel inay shaqaystaan waxaan leeyahay kuwa dalka jooga iyo kuwa maqan dumarka guud ahaan waxaan leeyahay qofka dumarka ah way shaqaysan kartaa laakiin waa inay ku shaqaysato dumarnimadeeda waxa munaasibka u ah haddii aan iraahdo dumarnimadeeda waxa munaasibka u ahna ma ahan inaan ciriiri geliyey bilcagsi majaalaadka ama fursadaha ay dumarka haystaan ay ku shaqaysan karaan iyagoo gurigooda joogo ama ilmahooda haysto ama daa'irada dumarnimo aan wax culays ah ku keenin waa shaqooyin aad iyo aad iyo aad u fara badan laakiin ayaa ku daba dhegan oo ah fikradda inay hesho gabadha Soomaaliyeed wax culays ayay ku noqotay gabadha kaliya maahane ka shacbi ahaan guud ahaan fikraddii inaan helno wax nagu culus ayay noqotay sababta fikraddu muqaamaray rabtaa muqaamaradana qof geesi ayaa gala shacabka Soomaaliyeed shacbi geesi ayaa lagu tilmaamaa laakiin geesinimadana waa geesinimo aad iyo aad maxduud u ah marka waxaan dhihi lahaa gabadha Soomaaliyeed geesiyad noqo majaalaadka ku banaan wax la soo koobi karo ma ahan cid aad ka sugtay inay fikrad ku keentana aslan baysan jirin cidna fikrada ka sugin ee adiga waaqicaaga hoos u fiiri waaqic hoos u fiiri guriga fiiri muxuu u baahan yahay oo ka maqan maanta oo khadamaad ah wax la soo koobi kara maaha hooyada shaqaysa waxay u baahan tahay carruurta u haya meel qurux badan carruurta loogu hayo meel caafimaadkeeda aad u sareeyo in carruurta loogu hayo lacag sicir macquul in carruurta loogu hayo dad ilmihii ixtiraamaya oo tarbiya fiican ilmihii siinaya ama si raxmad leh ula dhaqmaya inay helaan hal jaanib kaliya waa wax hadda aan daldalayo dhan halkaas jaanib wuxuu u baahan yahay 5 6 7 nooc oo khadamaad ah yacni waxaa soo geli karto 7 qaybood oo bulshada ka mid ah oo majaalaad kala duwan bartay oo ka faa'iideysan karo hal dhinaca idin sheegay soo hay khadamaadka faraha badan gabadha meel isku qurxisay u baahan tahay gabadha meel fariistay u baahan tahay gabadhi waxay u baahan tahay
cid la talisa waxay u baahan tahay xirfadaha gabdhaha cid barta waxaasoo dhan yaan ka sugaynaa inaan rag ka sugno waa khalad waa inaan naga samaysano yacni haddaan hoos u fiirino ama gabdhuhu ay hoos u fiiriyaan shaqooyinka ay qaban karaanoo dumarnimadeedana laa'iqa u ah run ahaantii waxaan noqonaynaa bulsho dhaqaalo fiican haysto ayaan noqonaynaa bulsho ma noqonayno khat alfaqri soo gaara ma noqonayno sidaas ayaan guud ahaan ku dhiiragelinaya ama ku waaninayaa ganacsatada ustaad xabsa aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan wareyskan kula yeesho sidoo kale waxaan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee aad iiga aqbashay inaan wareysigan kaa qaado waa mahadsan tahay idinkana sidoo kale janaak manaal guula idin rajaynaynaa insha allah aad iyo aad ay u mahadsantihiin daawadayaal barnaamijkeena intaa ayuu ku egyahay mar kale waxaa inoo balan ah barnaamij kale oo xiiso badan insha allah aad ayaad u mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.